safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalka Uganda ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Uganda. Ikraan Shira ayaa warkan inoo faafaynaysa. safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Uganda u fadhiya Danjire Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagaburuur ayaa kulan kula qaatay magaalada Kampala ee dalka Uganda wasiir dowlaha arrimaha dibadda Uganda Ormey Henry Okello. safiirka iyo wasiirka ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiisyadii dhawaan kala saxiixdeen labada dowladeed Soomaaliya iyo Uganda. sidoo kale safiirka iyo wasiir dowlaha ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo heshiisyada lagu ballansanaa in dhawaan la saxiixo oo kala ah socdaalka, waxbarashada iyo caafimaadka. safiir Cali Cagaburuur ayaa sidoo kale wasiir dowlaha kala hadlay caqabada maalmahan la soo gudboonaaday muwaadiniinta Soomaalida ee Uganda ku nool oo taasoo la xiriirta dhanka hay'adda socdaalka dowladda Uganda. labada dhinac ayaa isku afgartay dhammaan qodobadii laga hadlay sidii wax looga qaban lahaa.